dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan bin Cabdulcasiis Al Sacuud wuxuu ku dhashay magaalada Jidda 31 Agoosto 1985. Waa Muslim Sunni ah, waana wiilka ugu weyn xaaska saddexaad ee boqor Salmaan ee Fahda bintu Falah bin Suldaan. Waxa uu dhaxdaa oo uu qabaa Sara bintu Mashhuur bin Cabdulcasiis Al Sacuud. Waa 33 jir ku fadhiya kursiga labaad ee ugu muhiimsan boqortooyada Crown Prince of Saudi Arabia. Sidoo kale waa shakhsiga boqortooyada ugu adeega ra'iisul wasaare ahaan. Wuxuu kaloo isku yahay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo horumarinta iyo gudoomiyaha golaha siyaasadda iyo amniga. Wuxuu waxbarashadiisa gabi ahaan ku qaatay gudaha Sacuudiga, asigoona ka qalinjibiyay shahaadada sharcigana ka qaatay King Saud University oo ku taala gobolka Riyadh ee dalka Sacuudiga. Dhererkiisu waa 1.83 mitir, halka culeyskiisu yahay 70 kilogram, waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu haysto $4 bilyan. Inkastoo ilo kale ay sheegayaan in uu haysto lacag u dhaxaysa 3.2 bilyan ilaa 10 bilyan. 2009 Amiir Maxamed wuxuu la taliye gaar ah u ahaa aabihii oo markaa ahaa gudoomiyaha gobolka Riyadh. Wuxuu xoojiyay awoodda uu ku dhex leeyahay qoyska boqortooyada, wuxuuna masraxa madaxnimo si aad ah uga soo muuqday sanadkii 2015 kadib markii aabihiis boqor Salmaan uu ku daray jiil cusub oo dhaxal sugayaal ah. Isla sanadkii 2015 boqor Salmaan ayaa eryay walaalkiis Murqin bin Cabdulcasiis oo ahaa dhaxal sugaha koowaad, asigoona ku bedelay Maxamed bin Naayif. Wuxuuna sidoo kale ka dhigay wiilkiisa Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha labaad, asigoona sidaas ku noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka boqortooyada. Boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis wuxuu siyaasado maleegaba wuxuu wiilkiisa ugu dambeyn ka dhigay dhaxal sugaha koowaad. Ninkii dhaxalka boqortooyada lahaa Amiir bin Naayif ayaa darajadiisa laga xayuubiyay, waxaana laga eriyay wasiirnimadii wasaaradda arrimaha gudaha. Arrintan ama dalacsiinta Amiir Maxamed waxay dowladda Iiraan ku tilmaamtay afgembi dabacsan. Arrimaha uu ku soo caanbaxay isla markaana sababtay in dunidu falanqeyso mustaqbalka siyaasadeed ee Sacuudiga ayaa waxaa ka mid ah wuxuu dhaxal sugahan bishii Abriil 2016 hal abuuray daahana ka rogay isbeddello waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha ah, sida qorshaha fog ee 2030 oo ah qorsho hadafkiisu yahay sida ay Sacuudiga uga gudbi lahayd ku tiirnaanshaha dakhliga saliidda. Sidoo kale wuxuu ka shaqeeyay asigoo ah wasiirka difaaca in dagaal lagu qaado Yemen, isla markaana baasiin lagu shubo siyaasadda holceysa ee Yemen. Wuxuu diiday in dalkiisa uu wadahadal la yeesho dalka Iiraan. Wuxuu xiray 10 qof oo caan ka ah Sacuudiga sida amiiro, wasiiro iyo taajiriin, asigoona ku xabisay qasriga qaaliga ah ee ku yaala Riyadh ee loo yaqaano Ritz-Carlton. Waxaana in badan la falanqeeyay guryaha iyo doomaha uu iibsado, ayadoo ba iyo hoog uu ka socdo qaar ka mid ah dalalka Islaamka. Sida uu daabacay wargeyska The New York Times, wuxuu 2015 iibsaday guriga ugu qaalisan dunida, asigoona gurigan ku gatay $320 milyan. Qasrigan lagu magacaabo Louis-kii afraad wuxuu leeyahay kalaab, shineemooyin, jidad yaryar oo qoyan iyo biyo hoose oo uu kalluun ku nool yahay. Isla sanadkii 2015 wuxuu $590 milyan ku iibsaday doon qasri ah oo uu lahaa ganacsade u dhashay Ruushka. Sidoo kale waxaa la ogaaday qofka dhabta ah ee iibsaday sawirka farshaxanka ee Leonardo ee uu sameeyay Salvador Mundi in uu yahay Amiir Maxamed bin Salmaan, asigoona sawirkaas kala baxay $450 milyan. Dhaxal sugahan wuxuu si aad ah warbaahinta caalamka u qabsaday kadib markii lagu eedeeyay dilka ilaa haatan doodiisu taagan tahay ee loo geystay Jamaal Khashoggi. Haddaba haddii aad channelka ku cusub tahay, fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada kale.